marka dadkan sabab ay u qaataan mushaar kordhis ma jirto maanta ma jirto sababta wadankii waxa weeye dhaqaalihiisa aad u liitaa waxa weeye waxay had dawladda budgetkeeda waxay ku shaqays badan wax dad kale iyo wadamo kale loo soo bariyo way marka lama fakarayo meeshan marka waxa weeye tuugo baanka isku timaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal ku soo dhawaada channelka La Warcad oo kala soo kartaan YouTube barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay arrin mucjiso ah oo ka dhacday waddanka Soomaaliya dhowr bilood ka hor marka dhowr bilood ka hor waxa weeye sheekada ka dhacday waddanka Soomaaliya waxay ahayd dadkan oo golaha shacabka fadhiya oo inta ku jeedaan baa isku yimaadeen markii December-tii hadda la soo dhaafay marka halkaas waxa lagu tashaday in ay mushaarkii ay kordhistaan marka waxa weeye wax la iska dhacay ma aha wixii xaqiijinaya kana soo jeedaan marka soo inta ku jeedaan waxa xildhibaanada mushaarkoodu ahaa $3,500 baa ahaa marka ayaga baa waxay codeeyeen in mushaarkoodii lagu daro $1,500 si u helaan $5,000 laga bilaabo Janaayo 2024 ka dambeeya marka meel kalena soo inta ku jeedaan waxa la dhahay mushaarka ay qaadan doonaan xildhibaanadu wuxuu noqon doonaa $5,600 bishii marka waxa weeye mushaarkaas waxa weeye mushaar kordhiskaas ay ayaga codeeyeen oo hirgeliya waxa weeye culays ku ahaanaya dawladda budgetkeeda marka dadkan waxa weeye damiir xumo baa halkaas la fadhiyaan xaraan cunid baa halkaas loo fadhiyaa in laga taajiro xoolaha dawladda baa halkaas loo soo shaqo doonta marka arrintan waxa weeye dad badan baa codeeyeen soo jeedaan 186 baa codeeyeen 3 qof kaliya baa diiday yaa waxa la dhahay maaha oo been wixii xaqiijinaya kana video xaqiijinaya kana la fiirsado dejiya yaa diidan hal qof laba qof dejiya yaa ka aamusay cidna hadda halkay iga muuqataa waxa weeye waxaa diiday saddex qof okay boqol 86 baa ogolaatay 3 baa diiday aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkuna waa ku guulaysanay waa inoo xiran yahay mahadsanidin waxyar wasiirka ayaa marka waxa weeye 3 qof kaliya baa diiday inta kale way ogolaadeen oo waliba loo saacbinayaa yaa damiir xumada halkaas ka jirta soo jeedaan marka halkaas tuugo baa isku timaaday ilaahay ka baqay waxa weeye xaraan cunid baa loo soo shaqo doonta marka lacagta markii la kordhiyo markii dadkan mushaarkooda ay kordhistaan lacagta galay Kenya lacagta waxa la Kenya dadkaas dhibaataysan jeebkooda maanta Soomaaliya dad badan baa malaayiin qof baa leeyihiin waxay cunaan marka canshuurta laga qaaday dadkaas dhibaataysan baa kor loo kordhinaya marka hadda sheekadii mar hore ku bilaabatay xamar dadka guryaha leh mushaarkii laga qaaday jiray sanad walba waa la kordhiyay hadda mushaarkii waxa ka wada canshuurtii oo laga qaaday jiray dadka guryaha xamar ku leh waa la kordhiyay dhibaatada maanta waddanka Soomaaliya haysta waxa weeye dadka oo maanta xeelka loo dhiibay jagooyinka kulli waa tuugo way halkaas waxa loo soo shaqo doontay in xoolaha dawladda la boobo marka waxa weeye xaraan la iska ilaalinayo maxaa la dhahay sumcad xumo la iska ilaalinayo marka waxa weeye normal ahaan adduunyada kala daa fiirsatid xildhibaanada mushaarkooda dad kale baa go'aan gaare xildhibaanada mushaarkooda intuu noqonayo laakiin meeshan waxa weeye Soomaaliya la dhahay sharci nidaamka ma jirto marka xildhibaanadii ayaa go'aankaas gaaraya marka maanta sabab ay xildhibaanada ay mushaarkooda loo kordhiyay ma jirto wax fiican ay qabteen ma jirto marka maanta siyaasad xumada maanta waddanka jirta ayaga mas'uulka inuu Xasan Sheikh uu ku soo laabtay jiradii ayaga ka mas'uula in maanta waddanka uu qarku u saaran yahay burbur dambe ayaga ka mas'uula marka dadkan sabab ay u qaataan mushaar kordhis ma jirto maanta ma jirto sababta wadankii waxa weeye dhaqaalihiisa aad u liitaa waxa weeye waxay had dawladda budgetkeeda waxay ku shaqays badan wax dad kale iyo wadamo kale loo soo bariyo way marka lama fakarayo meeshan marka waxa weeye tuugo baa halkaas ku timaad marka maanta waddanka siyaasadda dalka Soomaaliya aad buu liidataa waddankii qarku wuxuu saaran yahay burbur kala labaad buu qarku saaran
taas waxa mas'uul ka ah dadkan halkan gabran oo doorteen Xasan Sheikh marka dadkan ma istaahilaan inay mushaar kordhis helaan marka taas waa nasiib xumo in dadkan tuugadan madax laga dhigto daawayaal barnaamijka la isku ka marka aan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo saraaxda dambe